السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء شبكة laga bartay magaalada Nairobi gudaha inteeda loo yaqaan Tajmal waa aniga Amiin Cabdi muuqaalka maanta hadii Allah idmo waxaan ku qaadan doonaa 10ka antivirus ee ugu wanaagsan caalamka 2016 oo ah sanadka aan ku jirno imika si dhamaanay daqiiqadiisa aan ku jirno antivirusyadaas oo ah 10 antivirus oo kala galay kaalinta koowaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad kaalinta afraad kaalinta shanaad ilaa kaalinta tobnaad kala galay oo ugu horeeyo oo helay golden award ama kaalinta koowaad antivirus-ka loo yaqaano Bitdefender oo ah kaalinta koowaad helay oo inta badan aan dalka available ahayn ama la helin ilaa aad bank si online haalad ku iibsata mooyaane laakiin waxa kaalinta labaad galay mid available dalka guud ahaantiisa meel kasta Soomaali degan tahay ama caalamka kamid ah oo ay Soomaali degan tahay aad ka heli karto oo loo yaqaano Kaspersky oo ku caan ah dalka ama guud ahaan geeyga ay Soomaali degto kaas oo loo yaqaano Kaspersky-gaas oo inta badan available u ah laptop-yada oo aad ku heshiin isagoo CD ahaan ama boxes yar ku jira soo activation code-kiisa iyo CD-ga ama cajaladiisa CD-ga isla socdaan oo aad ku shubato computer-kaaga isagoo 1 year ah 2 years aad ka wada heshiin insha Allah waxaan idin tusi doonaa bal sida ay u kala galeen kaalmaha koowaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad kaalinta afraad iyo waxa loo kala eegayo meelaha laga qiimeeyay ee test result oo ka soo baxay ku yimid yahay protection-kooga usability-googa performance-kooga anti-malware-kooga ransomware-kooga antivirus-ka saw kala qabta iyo anti-malware-ka saw qabtaan inter-device ay available u yihiin iyo say kaalmaha koowaad iyo labaad u galeen iyo kaalinta saddexaad yaa galay taafaraadta shanaad lixaad iyo toddobaad oo ka toddobaad lixaad u galay antivirus-kiisuna caanka ee ay Soomaali inta badan isticmaasho loo yaqaan Avast oo aad loo isticmaalo isagana la helo isagoo free oo 30 days trial ah inkastoo kuwa kale la helo 30 amba 7 days amba 30 days trial ah laakiin insha Allah waxaan tusi doonaa bal sida shabakadooda inagoo booqanayna iyo say u kala galeen oo casharaantan kamid yihiin casharaantan taxanaha ka dhignaan muuqaalkii hore aan ku sheegnay security-ga waxaan insha Allah ka baran doonaa qaybta more secure noqon how to be more secure ama saad noqon lahayd more secure ama mid amaan ah insha Allah daawasho aan muuqaalka okay casharka ayaa soo gudagali doonaa ugu horaantii waxa weeyaan marka ugu horeyso waxaan in tusi doonaa 10ka antivirus ugu horeeya caalamka 2016 oo ugu horeeyo Bitdefender oo antivirus-ka golden award-ka la siiyay ama abaalmarinta dahabka ah kale marka review lagu sameeyay waa shabakad top 10 review layla oo shabakad inta badan review ku sameeysan badigu eegid antivirus-yada iyo top 10 iyo sidoo kala qiimo badan yihiin iyo wax qabadkooga u qiimeeysa oo kaalmo u kala gelisa ugu horaantii waxa weeyaan waxay kaalinta koobaad galiyay Bitdefender oo antivirus caalamka ka ugu horeeya ah lacagtiisana lagu helo $29 adu waa $30 oo dhameystiran intan waa inta account-nadu ay ka jaranayaan 5 senti adu waa $30 oo dhameystiran ayaa laga rabaa kan $40 ayaa la siiyay waa Kaspersky waa ka kaalinta labaad galay oo ah antivirus-ka inta badanna laga helo dalka Soomaaliya guud ahaan ama geeyga Soomaaliya degto guud ahaan gaar ahaan Somaliland inta badan laga helo Norton Security waa isaguna mid loo isticmaalo antivirus ahaan oo inta badan aad ku aragtiin in ay ku soo degaan systemyada loo yaqaan Windows oo inta badan marka shirkadda laga soo iibsado iyagoo ay ku inta badan ku soo shubaan ay shirka yihiin shirkadda Norton Security oo ah antivirus isaguna inta badan kaalinta labaadna galay more secure-na ah okay siday ku kala galeen kaalmaha waxay review lagu sameeyay ama la test gareeyay waxa weeyaan protection-kooga performance-iska iyo usability-ga iyo qaar badan oo hoos ku arki doono oo qaar 100% la siiyay qaar 100% la siiyay qaar 100% imiga Kasper oo kale 100% ba la siiyay xagga 100% waa iskaga mid xagga performance-isu way ku kala duwan yihiin 290 ba Kasper la siiyay saas oo kale waad arkay qaar ba 75 la siiyay qaar ba 67 la siiyay 75 92 performance-iskooga usability-ga wadi arkay qaar 100% qaar 290
hoos haddaan usii daadegno deviceska waa adiga arkaya deviceska available u yihiin waa 3 device aan u malaynayo mobile tablet ama xagga OS ka hadday u xisaabinayaanna window iyo android iyo waxaan u maleeyaa applicationka loo yaqaano Apple ay soo saarto iOS ama Mac systemyadeeda protectionka ama mobile protectionka waa wada available wada arkaya qaar badan inay sax yihiin oo kuwan wada lacag yihiin kaasna aad bilaash ku helisid tick saaranta aad arkaysid sax inay yihiin protectionkooda waxaa kaloo aad helaysaa oo ah ama anti malware inay ka wada sax yihiin oo antivirus kind of virus ah oo inta badan affect gareeya computer ama systemyada oo iyagu wada sax yihiin laakiin kaalinta koobaad uu galay loo yaqaano Bitdefender wadi arkay qaar badan waxa la wada eegay ransomware protection outscan USB oo isaguna USB automatically isku isaan gareynaya scanning income email oo isaguna emailka ku iskaan gareynaya ku soo gariya gamer mode boot versionski CD qaar badan ayaa review lagu sameeyay oo kaalmaha saar loo geliyay okay balan booqana shabakadahooga shabakadada hore ayaan booqanay markaan sameynay sooreey waa store-koogii xagan Kaspersky kujiid Kaspersky oo ah isagu aan dalka ka heli karno oo ah kan ugu dambeeyay la isticmaalo ee kaalinta labaad galay ayaa qaybo badan u kala saarmo marka laba qaybood buu kala saaraa antiviruskiisa oo uu shaqeeyaa mid si personal aad u iibsanayso mid aad business u iibsanayso oo kala muhiimsan yihiin oo more secure yihiin marka shirkad laga shaqeynayo in amaankooda aad loo adkeeyo oo shirkad hantideedii iyo waxayga computerada ama systemyada ay ku wada jiraan marka la rabo in aad loo adkeeyo waa si gaar ah mid gaar ah kan personalkiina waa mid gaar ah oo isaguna kama liito kan businesska ah oo la isticmaalo inta badanna waxa ay inta u kala qaybeen qaybo kala duwan antivirusyadooda oo mid total security leeyahay mid internet security leeyahay mid antivirus leeyahay mid security for Mac leeyahay oo Mac uu shaqeeya Mac ay ku shaqeeya marka inta badan marka loo eego xataa systemyada Windows iyo Mac waxa Windows ba vulnerable ka ah marka loo eego Mac oo Mac very secure waaye waa inta badan kharash baa la geliyaa waxa la oran jiray marka qof jinto gala kharash buu geliyaa saddex ligeed systemkan Mac-na waxa la geliyay kharash badan oo waa tad keentay inuu ka qaalisanaado systemyada kale oo inta badan la helin oo $1,000 ilaa ku dhawaad lacag ah la siiyo laptopyadeeda Mac Pro iyo iPhone-nada soo saartay S6 iyo iPhone S6 iyo leeyahay qaar badan ay soo saarto ay saacadaha ka mid yihiin iyo wax badan marka kharash badan bay gelisaa saa leeyahay more secure ah than Windows ama Microsoft systemyadeeda inta badanna waxaad ku helaysaa oo dalka aad ka helaysid iyagoo fiya antiviruskan oo isagoo lacag ah oo $20 ama $15 laga siinayo inta badanna waxa aad rabtiin aad sifriya 30 day 30 cisho ayaad isticmaali kartaa inta badan waxa la helaa internet security kan ah oo 30 days shirkadan lama kara gareyn karo antiviruskayga kuwa kale oo la Avesta oo kale isoo kara gareysanayad helaysaa oo 1 year free laakiin inta badan kan waxa serverkooga ayaa automatically ugu xiran antiviruskaaga marka antiviruska mar walba uu ku khashifayaa salaajligeed waxa inta badan la isticmaalaa isagoo legally oo insha Allah hadii aan helno shabakado si legal looga helo activation code-ka aan insha Allah idin soo dhigi doono waadi arkay in shirkadda Avesta darkisid in ay internet security lacagtiisa uu yahay $70 to $79 aduwa $80 laga siinayo marka fadlan inta badan isoo iibsada si more secure ugu noqdo mobilka computerkaagu Kaspersky internet antiviruskiisa
intaasaan maanta cashirkeena ku joojin doonaa oo ah review ama eegitaan aan eeganuun antivirusyada iyo siday u shaqeeyaan iyo top 10 say u kala haystaan. waxa ku xiga oo kale oo aan hore usoo sheegnay Norton oo inta badan security mid Microsoft ay kusoo dhisto ama ay kusoo install gareysa ah oo aan ku arkay inta badan laptopyada sida tooska looga keenay Microsoft shirkadda istoorada ama dukaamadeeda ama dibadda laga keeno inta badan waxay ku dhisan yihiin Norton antiviruska ama lagu soo shubay Norton. antivirusyada kalena way jiraan oo Avast iyo Avera iyo Mic oo kale iyo waad helaysaa F-Security oo kale waad helaysaa Pool inta badan waa la helaa. intaasaan maanta cashirkeena ku joojin doonaa. fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe noo tirahdeen channelkan YouTube ku leenahay Tajmal shabakadan waa kan subscribe inaad tirahdid channelkan oo ah channel aan YouTube ku leenahay oo casharaanta video aan soo dhigno adiguna saad ula socoto mar walba wixii aan soo dhigno oo notification ahaanba ama email ahaan kuugu soo diraysa automatically emailkaaga ama haddaad YouTube ku aragtidna xagan si toos ah kuugu soo fursanaa darkiisa meelaha ku soo fursanay shabakada Tajmalna darkiisa iyadna inay shaqeyso oo aad casharaan badan ka helaysiin oo aad arkaysiin in casharaan badan ku jiraan. xagan aad like noo siisid Tajmal page kan ku leenahay YouTube Facebook like siisid saad ula socoto wax walba ama newska ama artikelada ama fiidiyoyada aan mar walba soo dhigno. intaasna cashirka ku joojin doonaa haddii alla idmo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. amaan allah.